عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. dhab ahaantii waxaan u dirnay Thamuud walaalkood Saalix isaga oo ku leh caabuda Allah oo kaliya. marka fiiri waxay noqdeen laba kooxood gaalo iyo muuminiin oo la murmaysa qolaba qolo kale. qisadeenna maanta waxay ka hadlaysaa ciqaabtii ku dhacday qoomkii Thamuud. Thamuud waxay ahaayeen qabiilo caan ahaa oo loogu magac daray awowgood Thamuud wiilkii Jadiis. labaduba waxay ahaayeen ilmo Caasim bin Iram bin Saam bin Nuux. waxay ahaayeen carab degganayd inta u dhaxaysay Xijaas iyo Tabuuk. waxayna noolaayeen qoomkii Caad kadib oo ay caabudeen sanamyo sida qoomkii Caad oo kale. waxaan horay u soo xusnay in Thamuud asalkoodii ay ahaayeen carab oo ay yimaadeen qoomkii Caad kadib ayaga oo aanan waxba ka qaadan wax cibrad iyo darsinba ah taariikhdii dadkii ka horeysay iyaga. markaasuu Alla weyne subxaanahu wa tacaala u diray iyagii reer Thamuud ahaa nin ka mid ahaa iyagii rasuul ahaan, wuxuuna ahaa nebi Saalix calayhi salaam. wuxuu ugu yeeray inay caabudaan Allah kaliya oo aysan la wadaajin waxna cibaadada Alle oo ay ka joogaan dhammaan sanamyada ay caabudayeen oo baadilka ahaa. qaar ka mid ahaa qoomkiisii ayaa waanadiisa qaatay oo rumeeyey, halka intoodii badnaa ay diideen ayagoo xitaa isku dayey inay dilaan nebi Saalix calayhi salaam, laakiin ay dileen hashii uu Alla ugu soo diray mucjiso ahaanta. wuxuu ku yidhi nebi Saalix calayhi salaam qoomkiisa, Allah waa isaga kan idin abuuray oo idinku uumay arlada oo idiin oggolaaday inaad degtaan arlada korkeeda. kadibna markuu idin siiyey dhir iyo daaq iyo miraba, waa isaga irsaaqaha iyo waxbixiyaha. marka wuxuu mudan yahay inaad keligii caabudaan oo daacad u ahaataan. markii uu nebi Saalix calayhi salaam kor iyo hoosba habeen iyo maalinba uu wacdinayey intaas oo maalmood iyo intaas oo bilood wadartood intaas oo sannadood, ayay ugu dambayntii ku yidhaahdeen, waxaad tahay qof sixran oo waalan. haddii aad run sheegayso oo aad tahay nebigii Alle, inoo keen caddeen ama mucjiso ayidaysa waxa aad sheeganayso, maxaa yeelay waxaad tahay qof innaga inala mid ah oo aanan waxba inaga duwanayn. markaasay waxay u raaciyeen xujo oo ku yidhaahdeen, haddii aad ka soo saari karto dhadhaabtan, yacni buurtan dhagaxa ah, hal leh tilmaamahan. markaasay u sheegeen tilmaamihii ay doonayeen inay hasha noqoto. waxay yidhaahdeen, waa in ay noqotaa 10 mitir dherer ahaan. Entschuldigung, fällt Ihnen im Job? Oh ja, und wir? markaasuu nebi Saalix ku yidhi, bal ka warama haddii aan ajiibo dalabkiina may rumaynaysaan? waxay ku yidhaahdeen haa. markaasuu ballan ka qaaday. intaasi kadib ayuu nebi Saalix calayhi salaam baryey Alla weyne si uu u ajiibo dalabkoodii. markaasuu Alla weyne subxaanahu wa tacaala wuxuu buurtii ka soo saaray hashii ay dalbadeen. markii ay arkeen mucjisadii ayay waxay u arkeen wax weyn oo qariib la noqotay. in badan oo iyagaasi ka mid ahaa ayaa nebi Saalix rumeeyey, halka badankoodii ay ku adkaysteen gaalnimadoodii. hashii markii ay bannaanka u soo baxday, wuxuu Alla amray inay joogto oo ay ku dhex noolaato iyaga dhexdooda oo daaqdo halkii ay doonto,
iyo inay biyo ka cabto halkii ay doonto. markaasay waxay aaday ceel ka mid ahaa ceelashii biyaha ay ka cabi jireen oo cabtay biyihii maalintaasi oo dhan oo ay cabi lahaayeen dadka iyo dunyada kalaba. waxay ahayd in iyaga maalinta xigta ay ceelka biyaha ka waraabaan oo maalindhaaf biyaha u kala cabaan iyaga iyo hasha. waxaa la sheegaa in hashu ay lahayd caano badan oo deeqda dhammaan reer Thamuud oo idil bal ka badnaa. wuxuu alla weyne yidhi: qaala haadihi naaqatun lahaa shirbun walakum shirbu yawmin macluum. wuxuu ku yidhi saalex calayhi salaam iyagii, hashani waa hal waxay leedahay xaq inay cabto biyo, idinkuna waxaad leedihiin xaq inaad cabtaan biyo. midkiin waliba wuxuu leeyahay maalin la yaqaan. walaa tamassuuhaa bisuu'in faya'khudhakum cadaabu yawmin cadiim. ee ha ku taabanina wax xumaan ah oo dhib ah, yaysan cadaab maalin weyn idin qaban. markii digniintaasi uu alla weyne siiyey ay dhagaha ka xirteen, ayay waxay go'aansadeen inay dilaan hashii uu alla weyne ugu soo diray mucjise ahaanta, waxayna ku dhakadeen meel ceelkii biyaha u dhoweyd. waxaa xilka dilkaasi qaaday duqoodii lagu magacaabi jiray qidaar saalif bin jundac. waxaa la sheegaa inuu ahaa garac ama wacal aan ku dhalan xalaal. markii ay hashii timid ceelkii ay biyaha ka cabaysay, ayuu jidaar wuxuu la soo baxay warankiisii oo dilay hashii. markaasay iyadiina ku dhacday dhulkii iyada oo qurbaceedii uu arkayey, waxayna u googooyeen cadcad. saa markii uu gabalkii dhacay, yacnii uu habeenkii soo galay, ayay xitaa isku dayeen inay dilaan nebi saalex calayhi salaam. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. marka waxay qooleen dhagar, inaguna waxaan qorshaynay qorshe tab ah iyagoo aanan dareensanayn. saa nebi saalax wuxuu u sheegay in ciqaab xun ay ku dhici doonto 3 cisho kadib. subax ay khamiis ahayd oo ahayd maalintii ugu horaysay 3dii maalmood ee loo qabtay, wejiyadoodii waxay noqdeen caddaan. saa maalintii xigtay oo jimco ahaydna wejiyadoodii waxay noqdeen casaan ama guduud. saa maalintii ugu dambaysay oo sabti ahayd, wejiyadoodii waxay noqdeen madow. waxay yidhaahdeen 3dii maalmood waa ay dhammaatay, aaway ciqaabtii aad inoo sheegaysay saalaxow. maalintii axadda ahayd ayay waxay bilaabeen in jirkoodii ay soo udgiyaan, yacnii wax carfaya ay isku soo shubaan, oo ay soo fadhiisteen guryahooda agtooda ama dhexdooda, iyaga oo sugayey ciqaabtii alleh, yacnii iyaga oo ku jeejeesayey nebi saalex calayhi salaam. saa markii ay cadceeddii soo baxday, ayaa waxaa soo baxday qorax aad u kulul iyo dhulgariir dhulka hoostiisa ka dhacay. waxaa hal mar lala jaray dhulkii, dhammaantood waxaa la waayey shanqartoodii, waxayna ku dhaceen guryahoodii dhexdooda bakhti ahaan. كذبت ثمود بطغواها. dadkii ama qoomkii reer Thamuud waa ay beeniyeen nebigoodii xadgudubkoodii dartii, iyaga oo diiday rumaynta xaqa ah ee tawxiidka islaamka. إذ انبعث أشقاها. waa tii koodii ugu sharka badnaa uu soo baxay si uu u dilo hashii. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. laakiinse rasuulkii alle saalex calayhi salaam wuxuu ku yidhi iyaga, iska jira oo ka cabsada ciribta xumaanfalidda, taasi waa hashii alle, ha u geysanina iyada wax dhib ah, oo ha ka hor istaagina inay yeelato aroorkeedii. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. dabadeed waa ay beeniyeen isagii oo ay dileen hashii. sidaasi aawadeed rabbigood baa ku baabi'iyey iyaga dembiyadoodii oo ka simay baabi'inta dhammaan heerarka bulshada
hodan sabool sharafle mid liita iyo wax la mid ah فلا يخاف عقباها oo isagu Allah kama baqin waxa ka dhalan doona baabi'intaasi ciribteeda yacni in dakano